أنت وتاريخ 6 سبتمبر 2017 golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubeysan ee ONLF golaha ayaa ugu horeyn warbixin ka dhageystay hay'adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubeysan ee ONLF waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhaxwaday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiirada inay ka doodaan falanqeeyaan eegaan dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan wasaaradda cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhageystay oo goluhu ka siisay ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Itoobiya golaha waxa la hor keenay nuqulka heshiisyo ee dawladda federaalka Soomaaliya ee hore ula gashay dawladda Itoobiya ee 7 Juun 2015 kaas oo dhanka Soomaaliya uu saxeexay wasiir dawlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Salaad ee dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud heshiiskan ayaa uu aqoonsanaya kooxaha hubeysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda ONLF inay qatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah waxa sidoo kale la hor keenay golaha wasiirada heshiis la saxeexay 2 May 2016 oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Itoobiya ku heshiiyeen in ay si wada jir ah isaga kaashadaan la dagaalanka nabaddiidka iyo argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal heshiiskan isaga ah 2 May 2016 waxa markaas dawladdii federaalka u saxeexay wasiirkii hore boostada isgaarsiinta mudane Maxamed Jaamac Mursal Geelle iyo mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed qodobada heshiiskaas oo ku ugu muhiimsan ay ahaayeen in si buuxda aan isaga kaashano la dagaalanka iyo ciribtirka kooxaha argagixisada ah gaar ahaan al-shabaab iyo ONLF dood dheer kadib golaha wasiiradu waxay go'aamiyeen arrimahan kow in siyaasadda dawladda federaalku ay tahay mid ku qatanta iskaashi dalalka geeska Afrika ah xoojinaysana nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga isla markaasna jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo ogoleyn in jabhado hubeysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan labo golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shakhsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubeysan ee ONLF isla markaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhaxwaday geyiga Soomaaliya iyo mandaqadda iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argagixisada ee al-shabaab dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadeynta mandaqadda si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka dawladda federaalka Soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada wadamada dariska ah ee Djibouti, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda ay si hagar la'aan ah uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta afar goluhu wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Itoobiya ay kala saxiixdeen sida heshiiskii 7 Juun 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan kood in cadawga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhadda ONLF ay qatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan shan waxa reeban isla markaasna mamnuuca in jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubeysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka horinayaan oo ay kaga duulaan wadamada jaarka lix dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka qaadi doontaa tallaabooyin cad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubeysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxo argagixiso ah iyagoo maleegaya falal lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo wadamada jaarka toddobo qodobka ugu dambeeya xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dib u eegis ku sameynaysaa heshiisyadii ay dawladdii hore gashay si qabyaatir loogu sameeyo wixii daloolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka dhammaad aad iyo aad u mahadsantihiin